aqoon-yahano haween iyo dhalinyaro ka soo jeeda beesha hawiye ayaa looga hadlay xaaladda ka taagan dalka iyo xilligan kala guurka. aad iyo aad mahad salaad barta ayada ku qabo halkaa ku jooji qabyaaladaada aad iyo aad soo dhawaada dhammaantiin waa idin salaamahaya waa waaska qablow ahaa qablow faarax walaalkiis macowkii ka yara bashir ballaa matanaayan xasan gore saaxiibkiis qarashow diriskiis ku noolaa uraa'una gerse kuusa hajaaba kaja lagti macalin shuuriye iyo bannaan weyn aad iyo aad dhammaantiin reernabadiina la soo dhawaada gacmaha ilaahay idinma gooyo sheergareeya cajaladan gaarsiiya beej walba iyo meel walba ku tuura idinkoo mahadsan siduu ilaahay nagu ogyahay xaqiiqda dhabta ah iyo reality-ga siyaasadeed ee dalkeena ka jiro ayaan bartan ka soo gudbinaynaa aad iyo aad waxaan marka rabaa maanta inaan bartan aan idinkala wadaago laba arrimood arrin qusayso gabadhii Soomaaliyeed ee la oranayay Nimco Qorane iyo duulaankii lagu soo qaaday ma garanaysaa ee baraha bulshada ee Facebook-geeda ma garanaysaa ee lagu xiray iyo taliyaha sirdoonka qaranka mudane ninka la yiraahdo Maha Salaad oo beesha caalamka iyo dawladda Turkiga ay ku cadaadinayso madaxweynaha qaranka iyo ra'iisul wasaaraha qaranka inay xil ka qaadaan sababa jira awood sababahaasoo xogtooda qaar gacanta ku hayo un bartan idinka soo gudbin doona insha Allah hadduu ilaahay marka koobaad waxaan doonayaa inaan ummadda Soomaaliyeed bartan iga dhageysanayso ama iga daawanayso inaan si faahfaahsan ugu soo gudbiyo duulaankii lagu qaaday gabadha Soomaaliyeed ee la yiraahdo Nimco Qorane iyo qaabka uu ku yimid iyo meesha gabadha laga soo raacay marka koobaad inaan ummadda Soomaaliyeed afaasiyo si aad ugu barateen cadeyntu idin soo hordhigaya iyo sida ay wax tahay waxaan doonayaa marka koobaad idinkoo mahadsan inaad ila dhageysataan kilibkan yarka ah dadka Soomaaliyeed ee u qeylay dhaamisay iskaalmeey dhahdo laakiin dawladda qasnadeeda wax ku jiro hadda xukuumadii hadda xilka dagis 1 milyan bala qaatay markay dhisaan guddiga gargaarka 100 kaliya ka keeneen xukuumadda hadda xilkeeda aw 900 kale ma haynay dhaheen 100 kaliya keeneen marka dawladda Soomaaliya ma haysato madaxweynaha xafiiska la wareegay hadda la wareegan inay waxayaan anaaba ognahay aad iyo aad klibkaas hadda aad maqasheen waxa weeye Cabdiraxmaan Cabdishakuur ninkii mucaaradka ahaan jiray oo hadda macnaha isu bedelay nin macnaha gargaarka iyo mucaawanada ka shaqeeyo wuxuu barta ka sheegay oo yiri dawladda Soomaaliya xukuumadda hadda sii dhaceysay ee uu hogaaminayay ninka la yiraahdo Roble in macnaha ay ballan qaada ama ku yaboohday 1 milyan oo dollar halkii milyan ay abaarta ugu yaboohdayna ay macnaha soo gaarsiisay oo kaliya 100,000 markaas 1 milyan markii 100,000 laga gooyo waxa soo harayso 900,000 900,000 ayay ummadda Soomaaliyeed isweydiisay wareysigaasi wuxuu ka baxay TV-ga Universal Nimco Qorane iyo dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo Soomaalinimada aad u weyn tahay oo wareysiga dhageysanaya ya fikirkooda waxay ku soo qoreen meesha la yiraahdo Facebook gabadha marka arintaas ayadoo ka jawaabayso ayaa waxay tiri Roble lacagtii 900,000 dollar ahayd xagee yaaday macnaha ayadoo markaa qodobeynayso oo fikirkeedii oradeeda soo dhiibayso marka waxaan doonayaa ummadda Soomaaliyeed hadalku Cabdiraxmaan uu barta ka sheegay oo yiri 900,000 1 milyan bay dawladda xukuumadda Roble hogaaminayay ay ballan qaaday 100,000 bay ina soo gaarsiisay 900,000 baa macnaha meel ka baxdaan lageyn waa su'aasha gabadha ay isweydiisay marka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed si ay waxan u fahmaan iyo xaqiiqda dhabta in aad klibkan mar labaad ila daawataan waa Roble oo markaasi ballan qaadayo 1 milyan oo dollar oo dawladda qasnadeeda laga saaray bal wax yar la daawo idinku maasan dhaqaalaha aan ku talagalnay inaan wada aruurinana waa mid yabohnay oo 1 milyan ah oo wasaarad ahaan iyo dawlad ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xukuumad ahaan waxaan waa wixii canshuurtiina waa meel kale kama aan keenay 1 milyan dawladda ay ku yabohday iyo inta kale oo aan rajaynayno oo pipeline noogu jirto aad iyo waa Roble waa ra'iisul wasaarihi horeeto xukuumaddii hadda dhacday sida arkaysi Roble wuxuu ballan qaaday oo magaranaysaa si wasiiradiisa ay magaranaysaa ansixiyeen in 1 milyan oo dollar lagu caawiyo ummadda Soomaaliyeed ee abaartu hayso sidaad cajalada ku horeysa ku daawateen ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo hadda macnaha u xil saaran gargaarka iyo abaaraha wuxuu cadeeyay in macnaha ballanqaadka 1 milyan ee Roble oo ballan qaaday ee qasnada dawladda uu ka soo saaray inuu soo gaarsiiyo kaliya 100,000 oo dollar marka gabadha la yiraahdo Nimco Qorane arintaas macnaha ay ka falcelinayso waxa dhacday marka Roble inuu dhaqaale uu bixiyay
marka ayada ahna uu ku bixiyay social media asagoo markaasi diidanaa hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur uu ka sheegay idaacadda in la dabagalo in macnaha gabadha iyo dad kale fara badan oo Soomaaliyeed oo fikirkooda dhibanaya inuu lacag ku bixiyo uu yiri meesha cabdiraxmaan duurbiinka la saari lahaa oo beel ahaan reer ahaan dadka iska hor imaan lahaayeen ninka la yiraahdo cabdiraxmaan waa ceyr ninka la yiraahdo rooblana waa beesha sacad wey inta iska hor imaan lahayn diiradda la aadiyo scapegoat oo markaasi ay noqotay gabadha la yiraahdo nimco qoran waxaa lagu soo qaaday duulaan waxa ay soo qortay facebookeeda ku soo qortana ma ahayn wax ayada ay jeebkeeda kala timid wuxuu ahaa hadal uu yiri ninka la yiraahdo cabdiraxmaan cabdishakuur oo cadeeyay $1 milyan ee qasnada uu ka soo saaray Rooble inay ka soo gaartay kaliya 100,000 Rooblena aan hadda idin daawasiyay asagoo ummadda Soomaaliyeed idaacadda kala hadlayo oo ballan qaadaya in $1 milyan wasaaradda wasiirada ay ansixiyeen lana siinayo dadka masaakiinta ee baahan marka halkaasi waxa macnaha dareemaysaan oo arkaysaan nimankan isku musharaxiinta la baxay ama isku reerka qaarkood macnaha in ay qaab sida wax u wadaan uu yahay qaab qabiil in macnaha mar walbeeto dadka kale u bursadaan xaqiiqda dhabta ninka yiri $900,000 baa maqan wuxuu cabdiraxmaan cabdishakuur Rooble waa ninka ballan qaaday weeye in $1 milyan abaarta la siin doono gabadha la yiraahdo nimco qorane oo gabar Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliyeed macnaha waajib uu ka saaran yahay siyaasadiisa xaqna u leh inay ka hadasho yaa fikirkeeda ka dhibatay duulaan baa lagu soo qaaday waxaa dhacday marka in doorbiinka cabdiraxmaan la saari lahaa in gabadha la saaro in macnaha rag Rooble saa la socotaan wuxuu xil ka qaaday markii uu la wareegay ra'iisul wasaarnimada ninkii haysan jiray wasaaradda socdaalka iyo immigrationka dalka Soomaaliya la oran jiray Mr. Kofi wuxuuna geeyay qof markaa asaga saaxiibadii uu wadan jiray qof kamid uu geystay baasaboorka Soomaaliyeed ama ha ahaado diblomaasiga ama ha ahaado kan macnaha shacabka ay leeyihiin waxa macnaha soo saarayo dadka social media ka dhawaaqa ama dadka social media dacweynayo u gudbinay waxa weey Rooble iyo asxaabtiisa oo wali ku harsan immigrationka dalka waad aragteen waadna maqasheen aad iyo marka nimco qorane waa gabar soo marka ay xaaladdu taagan tahay marka waxa dhacay marka waxaan rabaa intaanan u galin wixii dhacay iyo Turkiga wixii ka yimid iyo arinta hadda uu Eritrea u joogo ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud iyo hadda arintan aad maqasheen in mahad xilka laga qaadayo intaan u galin waxaan rabaa inaan tuso Sheekh Maxamed oo idaacadda BBC-da hadda ka hor wareysi siiyay ku cadeynaya in mahad uu ka tirsanaa al-shabaab weydiinayna wariyihii BBC-da goormu ka baxay ururka al-shabaab waxaan rabaa inaad ila daawataan oo magaranaysaa aad ka bogotaan ma sha Allah arrinta maxaa ku jawaabaysaa xildhibaanada markii aad aado xildhibaanada waa kuwa al-shabaabka ah laftoodii weeye ragga meesha joogay mahad al-shabaab ma ahan miya goormuu shabaabka ka baxay ninka la yiraahdo shabaabka ah intaasaa keentay khasab bayna nagu tahay markaas aad iyo aad qofkaad arkaysaan waa Sheekh Maxamed waa horjoogii horete ururka ahlu sunna wal jamaa gobolada dhexe dalka Soomaaliya ee ka arrimin jiray Sheekh Maxamed barta wuxuu cadeynayaa oo waliba soo qoslayo inuu xog hayo amal horena waa idinku sheegay ahlu sunna waxa waligood wada shaqeyn ka dhaxaysay sirdoonka Itoobiya iyo sirdoonka Mareykanka way wada shaqeyn jireen marka waxa halkaasi macnaha ummadda Soomaaliyeed hadda ay dareemaysaa hadalkii Fahad uu dhawaan warbixintu wareysigu bixiyay uu ku sheegay in al-shabaab uu ka tirsanaa ninka la yiraahdo ma salaad in macnaha hadda ka hor uu arintan ka hadlay ninka la yiraahdo Sheekh Maxamed halka marka aad wax aragteen ee aad dhageysateen ee aad daawateen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu tagay dalka Turkiga muddo dhowr maalin ku sugnaa sa la socotaan waxay wada hadleen garanaysaa madaxweynaha muxuu ahaa madaxweynaha dalka Turkiga waxyaabo badan baa laga wada hadlay wixii ugu weynaa oo markaasi macnaha laga wada hadlay waxay ahayd intelligence Soomaali madaxweyne ninka la yiraahdo Maxamed Xasan Sheekh Maxamuud waxa loo soo gudbiyo loo sheegay in macnaha tayadii ciidamada sirdoonka qaranka oo aad u sareysay laga yaabo inay hoos u dhacdo ninka uu magacaabay wada shaqeyntu ka dhaxin jirtay saaxiibaha mahad salaad la yiraahdana markaasi ay isu ku habooneen waa run
tala wadaag baanu leenahay xaq uma leh dowladda Turkiga in macnaha sirdoonka ama dowladdanada arrimaha gudaha inay faraha la gasho laakiin tala la leeyahay marka sirdoonka Turkiga dalkeena waa ka shaqeeyaan waa joogaan ama isbitaalada ha joogaan oo dhakhaatiiraha iska dhigaan ama ciidamada magaraysa tababaryaashooda ha ka mid noqdaan sirdoonka Turkiga warbixinta Sheekh Maxamed uu gudbiyay iyo warbixinta uu gudbiyay ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin iyo warbixinay sirdoonkooda macnaha soo arursadeen iyo al-shabaabtu ay naftirkooda ku dhex jiraan ya xasan madaxweyne xasan sheekh maxamuud la hordhigay saa la socotaan labadan maalinna waxaad maqlayseen in macnaha ninka la yiraahdo Maha Salaad ay magaraysaa la bedelayo oo laga qaadi doono taliyaha sirdoonka qaranka xasan oo markaasi la taliyaal Soomaaliyeed oo khubaro ah siyaasadda Soomaaliya iyo dhinaca amnigana magaraysaa talo fiican ay ka siiyeen يا وحلاقي يا معلمها صوص عضو مجرد هاي إن حلقة لقطها مركز خبرة الصومالية كلاتها للسي حسن إن معناها وسن مها صلاة أرنت سردونك وسنكوها بونين ومالك لهدي ومركزي وهاي ينوجي وسردونك قف معناها أسلوب له قبيلة ده كم بدح بنان مجرد هاي أنا كمل من سياسته مجرد هاي الصومالية قاب كدراي قبيلي جاها أن كمل من إن معناها أو كرامة هيئة كور وسقاطة إنه ماشى كانوا مركو حاروا أنا تصو ما حد وحيابها كده بيمد حد معناها جرافيريو قف الصومالي جاهنا اسوي الديني وليه قف معناها ومد الصوماليات أن أسنين قبائل الصوماليين أن أسنين ومجرد سيدجانا الصوماليين أن أسنين سيدابو سردون كنا قنكرا سيلو آمين كرا سرت يحكت أرورنا يو مجرد إن ضلك اللي جم عمله مركان هذا الكائن الله وحار ربعنا تشكلي نكلي راد مها صلاة ومركان كهذا ليو شر جرائد ويقبتين بيشيسة وكم إذا بيرها الصومالية ضلك يندقو ومركاس سجع فيين وياه ومركا عبدين يو إنه وياي أفيين كبيشة هوية وسا كذا شيء وعمد يسوع صارين سوق بني مركا نين بيلا مسن أف بيلن دكوا هذا ليو سيدل لو آمين كرام مسيركي يسيرتي قرنكا iyo umada Soomaaliyeed oo xogtan iyo macluumaadka laga soo aruuray qaabku ugu cadaalad marka waxaan rabaa waxa aan ka hadlayo dad baa wuxuu maleynayaan inaan iska dhahayo inaad daawataan clipkan ninka la yiraahdo Maha Salaad oo ah taliyaha sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo markan macnaha af qabiil ku hadlay wax yar la daawadeed ku maas shiga beelweynta hawiye war murtiyad shirweyne ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka xubno ka tirsan midowga murashaxiinta xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka xildhibaano ka tirsan baarlamaanada galmudug iyo hirshabeelle aqoon-yahano haween iyo dhalinyaro ka soo jeeda beesha hawiye ayaa looga hadlay ninkaad arkaysaan waa Maha Salaad wuxuu sheegayaa oo barta uu ka cadeeyay in macnaha beesha hawiye shir ay qabsatay wixii ku heshiisay inuu umada la wadaagay haddana wuxuu ku fadhiyaa kursiga sirdoonka qaranka Soomaaliya marka nin beel aaminsan oo reer aaminsan oo qabiil aaminsan sidee 20 milyan oo Soomaali ah oo isku beer ahayn oo kala beel ah macnaha amnigooda iyo nabadgelyadooda uu ku soo karaa macnaha nin qabiil aaminsan reerkiisu baa wax walba ka hormarnaya marka haddii dib uu soo socdo ama sir xog dalkan ama ummadan masiirkeeda la rabo in macnaha lagu badbaadiyo ama hor loogu wado mar walba wuxuu ka hormarnayaa asagoo ku fadhiyo kursiga qaranka national security magaraysa intelligence ku fadhiyo in reerkiisa macnaha marka ayada uu ka hormariyo dantii qaranka ka hormariyo dantii ummadda Soomaaliyeed ee asaga aan ku qabiilkeen marka howlaha soo dhan isbiirsada bay ninka la yiraahdo Maha Salaad ee dul heehabayo Turkiga iyo wadamada Mareykanka iyo magaraysa wadamada Europeanka iyo international community waliba kuwa daneeyo ee xeebaha Soomaaliya ku sugan ee la dagaalanka argagixisadana macnaha qarashaadka iyo dhaqaalaha ku cuno waxay go'aamiyeen in xasan macnaha aysan u qurxoonayn in uu sii joogo ninka la yiraahdo Maha Salaad maalmaha soo socdo waxaad maqli doontaan insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo Maha Salaad oo macnaha isbedel ku dhacay ama jaga kale loo magacaabay taliyaha cusub ee sirdoonka qaranka wiilon ka qabiilka uu yahay laakiin nin umada Soomaaliyeed u dhaxeen karo qabiil goonina aan magaraysaay aanan umada Soomaaliyeed ka jeclaanin umada Soomaaliyeed isugu mid tahay iyo umada rajeynaysa sharafta iyo karaamada hay'adda sirdoonka taasay macnaha ay ku haboontahay dhamaantii wada salaam haya waa waaska duqbulo waxa waxaan leeyahay salaam calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh